bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal meel walba aad joogtiin kusoo dhawaada barnaamij gaara ugu talagalnay inaan wareys la yeelano saaxiibkayga Abuubakar Xasan Cali oo ka mid ah dhalinyarada wax ka bartay dalka Turkiga in badanna ku noolaa ayaa waxaan ka wareystay xaaladda hadda ka taagan dalka Turkiga iyo waxyaabo uu la kulmay Abuubakar soo dhawow markii hore dhawaa walaalkay Abuubakarow markii ugu horeysay aad imaaday wadankan waxaad ka mid ahayd dadkii imaaday halkan ayaad ka mid tahay maxaad ka faa'iidaysatay maadaama aad ka mid ahayd dadkii Turki in badan ku noolaa maadaama aad ka mid tahay ardada wax ka baratay in badanna joogay halkan ilaa waqtigan hadda la joogo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu horreyn waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaana ugu bishaareynaya bisha barakeysan Ramadaanul Kariim haddaan su-aashaadii u gudagalo hadeertaan oo waxyarka hor ii weydiisay waxaan ka mid ahaa isleeyahay ardayda Turkiga imaatay cudubka saddexaad markaan iga imaanayay dalka waxaa igaga soo horeeyeen arday badan ayaa halkan igaga soo horeeyeen dhabtii markaan ka hadalno as arday ahaan wadankani waa wadanka keliya aan dhihi karo ardayda Soomaaliyeed waxay haystaan jaanis ah inay fikradahoodii aqoontoodii tabartoodii waxay yihiin halkan kusoo bandhigi karaan sidaas darteed aan leeyahay wadankani shaqsiyan markii aan iska hadlo wadankani wax waan ku bartay weli waan ku baranayaa howlana waa ka qabsaday nolosheedana waxyaalo badan kaga hormariyay khaasatan ani waxaan ka imaaday dal dhibaateysan burbursan xaaladiisii maanta aan wada ognahay adigoo mahadsan wariyaha koonfur galbeed Mr. Cabdiqaadir Xasan Ibraahim haddaan ka hadlo faktiga labada dal u dhexeeya waxay tahay dalka markaan imaanayay waa dal dowlad leh institutionkiisu saxan yahay leh maanteertaan qaab dowladeed dalka ka soo baxayna waa dal maanteertaan maxaa la yiraahdaa oo wax problemadiis ka badnaayeen dhibaatadiis badnaayeen institutionkii 1990 madaxweynihii hore Maxamed Siyaad Barre ilaa uu naxariistay dowladii kadib inaysan wadankaas institution lagu maamulo aysan lahayn waxaan wax ku soo bartay nolol adag waxaan wax ku soo bartay nolol oo dareemi karto hadeertaan oo labada dal khaasatan dalka Soomaaliya markaa ka hadlayo qaybta dugsiga sare qaybta dugsiga dhexe waxaan ku soo bartay dal maanteertaan baaba'san dal iskuulkiis ina aado markaa aadayso aad maanteertaan dhehayso nolol iyo geeri midkaa kaga soo laabanayso aadan aqoonin ayaa wax ku soo bartay alxamdulillaah hadeertaan waan ka soo gudubnay waxaana horta aad iyo aada waagaasi hadeertaan farqiga aad ayaan isku bedelay wadankaasi burbursan markaan kasoo bax halkaan imaaday ugu horeyn waa igu adkaad inaa fahmo institutionka wadankan ileen wadan burbursan markaa kasoo baxdo wadankan dowlad ahaan shuruucdeedii qaanuunkeedii waxay u qaadatay bilooyin inaan ku barto inaa shuruucdii wadankan inaa certified aan noqoto ugu horeyn dalka ka soo baxay daata ah aniga haan Abuubakar ah oo magaciisa Abuubakar Xasan Cali halkuu degan yahay halkuu ka imaaday meeqa walaala la dhalatay hooyadii magaceed aabii magaceed maadan lahayn dhabtii markaa ka xaqsay Turkiga iyadoo saas tahay waxay ii fududeysay inaa maanta helo fiisihii kusoo ardaynimada halkan aan imaado wax ku barto iyadoo saas ay tahay waan ku faraxsanahay wadankana waa wadan maanteertaan laga faa'iideysan karo xagga aqoon ahaan xagga sharci ahaan xagga bulsho dhaqan wanaag ahaan wax walbo waa dad aad iyo aad u fiican dalka dadkiisa dalkiisa hogaamintiisa iyo shacabkiisaba experience ahaan shaqsideedan waxyaalo badan oo maanta la soo koobi karin ayaa maxaa la yiraahdaa kaga hormaray saa hore u sheegay waxaan ka soo bax dal burbursan waxaan imaaday dal dhisan waa dareemi kartaa farqiga laba dal u dhexeeya marka Abuubakar waa mahadsan tahay sida sharafta leh aad warbixinta ayga siisay dalka Turkiga walaal waxaa kaloo ku sii weydiinayaa
maadaama adi aad dhahday waxyaabo badan ayaa ka faa'iidaystay markaan imaaday dalka Turkiga Sax. bal maxaa ka mid ah faa'iidada hadda adiga oo aad sheegaysid ugu horeen way adag tahay inaa ka qeexda wadanka faa'iido walbo khaasatan faa'iidooyinka haddaan dhaho waxaan ka faa'iiday waxay tahay the main majority-ga luuqadda dalka maasha Allah oo access ii ah oo beritoole meelo badan kuu furi karta si wanaagsan marka kullama qofka aqoonta markuu jaamacadda tago mise dugsiga sare waxaa lagu barayaa luuqadaha carabiga iyo ingilishka si wanaagsan markii adiga luuqad kale oo kuu dheer tahay waa kaga advance fiican tahay ardayda kale wax kula baranaysa markaas ileen access waxaa u haysataa dalka ku nooshahay environmentiga ku noosha inaad la wadaagto xagga shaqo ahaan hata xawalba marka aadaa ugu faraxsanahay qaasadan faa'iidada halkan ka faa'iiday waa luuqada dalka Turkiishka ah midda kale aan ka faa'iiday waxay tahay aqoonteedii oo sare u korkacday oo meel sare gaartay midda kale aan dhihi karo habdhaqanka bulshadeed ee la macaamilaan ummadda inaan ka faa'iiday ileen haddaadan maantirtaan aadan dhaqankaagii uusan wanaagsanayn inaa u laawato dalkaaga ma hagaajin kartid ugu muhiimadda aad leedahay markaad dhahay dhaqan wanaaga waxaa ka mid ah in adaga noloshaad ahaana ku daysato hogaaminta wanaagsan ee dalkooda horumariyay alxamdulilah habdhaqankana meel fiican ka gaaray oo maxaa la yiraahdaa Allah maxaa la yiraahdaa waxa sugnaatay alxamdulilah ilaa uma had celinayaa waxaa laga yaabaa dad halkan waxbarasho u imaadeen oo levelka maanta laga taagnaa aysan gaarin almuhim waxaan aad u mahad celinayaa alla subxaana wa tacaala wax walba ii fududeeyey tan xigtana waxaan aad u mahad celinayaa adiga opportunity-gan fursadana ay siisay inaan maanta dalka Soomaaliyeed aan ula hadlo farqiga u dhaxeeya markaa arday tahay iyo markaad noloshaada wax badan iska bedesha khaasatan haddaan si fiican uga hadlo ardaynimada oo adiga had tahay ajnabi mise aad Soomaali aad tahay aad ka imaato Soomaaliya aad imaato dalka Turkiga way adag tahay iyadoo saas ay tahay wax walbo waxaan ardayda Soomaaliyeed hadirtaan jecel inay imaadaan raba inay Turki wax ku bartaan raba inay mustaqbalkooda hagaajiyaan waxaa loogu baahan yahay waa sabar hadduusan qofka sabri oo maanta hiigsanin mise uusan lahayn hiigsi oo beritoolo kaga dhiilayn karo oo mise ka dhiilin karo hadduusan lahayn wax ma qabsan karo marka farqiga halkaa markaa imaanayay fikradan hadeertaan igu jirto iguma aysan jirin waa ku dadaalay waxyaalo badanna inaa bedelo waa isku day ugu dambeyn waa ku guulaystay alxamdulilah waxaana dhihi lahaa qofka walaalka ah Soomaaliyeed ardayga ah halkan ku baranaya inuu noloshiisa jaanisiyo waxaa baranaysa haddaa engineering tahay ogtahay field kale ku fiican tahay laguma diidana inaa participation ka noqoto mise fieldigaasi aad training ka qaadato barato jaanis kale waa raadiso research provide kareyso waxyaalo badan marka aad u mahadsantahay Abubakar taana waa ku mahadsan tahay tan xigta markaad fiiriso xiriirka dawladda Soomaaliya iyo Turkiga sideed baad u arkaysaa xiriirka ay leeyihiin waxaan la soconaa 2011 dalka inuu abaaro baabaasan ka dhacay dalka Soomaaliyeed dawladii hore markaan research ku sameeyay waxaan ogaa xiriirka Soomaaliyeed inay markii hore meel fiican u gaarsiisanaa oo darajadii maanta uu ahaa meel fiican xiriirka Turkiga soo maray waagi hore Turkiga maanta awoodeed adduunka ay ku leedahay maysan ku lahayn maxaa la yiraahdaa waagaasi laakiin maadaama maanta hertaan dabarteeni ay kaga wanaagsan tahay oo maxaa la yiraahdaa dawladda la tustay inay tahay dawlad walaalkee maxaa la yiraahdaa oo dawlad karabkeena ah la tuseen xitaa inay la dhasheen oo kale qofka Soomaaliyeed markuu qofka Turkiga arko wuxuu leeyahay walaalkayga soo dhaw walaalkayga Soomaaliyeed maxaa ku qabtaa walaalkayga Soomaaliyeed maxaa ka caawiyaa it means dawladda dalka ninka hogaaminayay wuxuu dhahay dalka Soomaaliyeed xiriir kaliya ma dhaxeeyay xiriir walaaltinimo naga dhaxeeya
xiriirka looma ahan in wadanka maanta galaas bii lagu keen laguga caawiyo waa waajib qof muslin ah saaran haddaa ka fiican tahay ka gacan saraysid waa inaa imaata u gargaartaa laakiin iyadoo saas tahay meelo badan oo maantirtaan dal ahaan ka xiriir ahaan ka diblomaatiyan ahaan ka ganacsi ahaan soomaalida la garab taagan yihiin ka xiriir ahaan Turkiga 2011 ilaa hadeertaan xiriirkoodii Soomaaliyeed aad ayuu meel fiican u saaran yahay aad iyo aad meel fiican u taagan yahay qaasatan dalka Turkiga wuxuu weli rajaynayaa inuu xiriir fiican oo mid ka qadarsan Soomaalida dhaxmaraan waana ku faraxsanahay maanteertaan inaan dal oo maxay yiraahdaa anigoo waxaa xasuustaa qasiir haddaan kaaga sheegay waxaan xasuustaa anigoo airportka ka soo degay maxay yiraahdaa da ahaan maanta meeshaan aan ka yaraa waa markii ugu horeysay dal institutionkiisii dhisan soo dhexgalo airportkiisii waana adag tahay inaad isku wareereysaa instructionka dalka ugu cusub marka meesan i weydiin waxyaalaha waa police the main pointiga markuu baasaboorkayga Soomaaliyeed oo saaniisaan u eeg markuu arkay si wanaagsan muusan i weydiin halkee u socotaa maxaa burbuus halkan u timaaday maxaa problema ku hay maxaa sababta wadanka haddaan wadanka la tegi lahaa must waa lii weydiin lahaa ligama soo weydiinin safaaradii ligama soo weydiinin maxaa la yiraahdaa airportka it means waxay cadeynaysaa xiriirka u dhaxeeya labada dal inay kalsoonida maanta meeshii ugu filan inay taagantaa opportunity-gaas oo maanta labada dal qabaan waxaan aad ugu baaqi lahaa dowladayni inay ka faa'iideystaan ganacsatadayni inay ka faa'iideystaan aqoon-yahanadayni inay ka faa'iideystaan si real marka laga hadlo marka xiriirkeeni lama soo koobi karo Turkiga naga dhaxay lama dhigi karo 1 iyo 2 waa mid aad iyo aad u balaaran intaas ku akela Abubakar waa mahadsantahay wali waxaan ku guda jirnaa wareysiga gaarka ah aan ugu talagalnay in ay idin soo bandhigno dadweynaha dunida daaficada meel walba ay ka joogaan waa mahadsantiin daawashadiina waxaan sidoo kale Abubakar maxaad isleedahay wadankan iyo dadkaaga Soomaali xiriirka u dhaxeeyo waa si adkaanaya waa si wanaagsanaanaya maxaad se ku fikiraysaa inaad naftarkaaga raay ahaantaada ama shakhsiyad ahaantaada aad ka qabsato ganacsi ahaado qorshooyin kale ha ahaado maxaad ku haminaysaa maadaama aad wax ku bartay wadankan oo qof oo maaragtay maanta wax walba uu qabsan karaa la dhihi karo aad tahay marka maxaad isleedahay fikrad ahaantaada dalkani opportunity kaliya ee furan aniga kaliya ma ahan 100,000 iyo in ka badan oo arday ah way u furan yihiin ganacsato ah wajiyada kala duwan ee dalka Soomaaliyeed dadka ku nool Soomaaliyeed way imaan karaan wax ka qabsan karaan kuma xirna aniga keligeyga inaan maxay yiraahdaa wax ku qabto laakiin as shakhsi ahaan haddaan ka hadlo qorsheyga inaan wax qabadkeeyay marka sifir ka soo kacdo oo step ma soo maato noloshu way adag tahay waxaan leeyahay maadaama graduate qofka markuu kor u kaco maanta rabo levelkii loogu taagay uu tago waxa u fudud wadadii uu wax ku qabsan lahaa marka as shakhsi ahaan haddaan ka hadlo waxaan hadartan ku guda jiraa economics mise ganacsi oo ah international marketing ah wuxuuna u shaqeynayaa sida tan wuxuu xiriiri u yahay mish u fududeynayaa adeega dalka Turkiga iyo adeega dalka Soomaaliya ganacsatada isweydaarsadaan maadaama haddii qofka shakhsi ganacsiga Soomaali uu yimaado dalka Turkiga ku adagta institutionka inuu fahmo si wanaagsan ku adagta luqadda inuu ku hadlo si wanaagsan waxaan u diyaarinay program mis waxaan u diyaarinay qorshooyin u fududeyn kara information ah asigoo luqadda Soomaaliyeed ah business information ahaado consultancy ahaado shuruucda dalka laga rabay dalka shuruuca u yaal marka rabto ina imaato ganacsiga la gasho shuruuca u yaal shuruucdaasi waa ina horta qabataa ganacsi iskiima u sameeyay ma aha si wanaagsan
shuruucooyinkaas u yaalo shuruucooyinkaas maadaama ay u yaalaan waxaan u fududeynaa qofka Soomaaliyeed inuu fahmo inuu ku qanco waxaan u fududeyn karnaa ileen moogtahay adduunka waxa lagu kala dhaafo waa information hadaa maanta rabo inaad wax soo saaro waa inaad suuqa raadiyaa information ka helaa informationkaas anigoo adeegsanaya waxaan soo saari karaa producti kan ugu fiican ugu tageysana sidaas darteeda waxaan u leeyahay institutionka dalka u yaala waa inaad marka hore barataa ileen qofka Soomaaliyeed institutionka oo dalka ka jira waa mid burbursan oo hadba meel u leexanaya way ku adag tahay markuu dal institutionkiisa maantartaan waa 2% oo meel loogu dhaqaajinayn markuu imaado inuu fahmo ileen moogtahay every agreement businesska waxyaalaha ku jiro every step ina dhameyso every step waa ina step ugu baxdaa maadaama sidaas ay tahay waa in qofka accesskaas loo fududeeyaa maadaama marka waxaan u nahay diyaaraynu nahay midda kale consultant qofka ganacsiga raba inuu ganacsigiisa horumarsiya muxuu qaban karaa maxaa la tala muxuu hagaajin karaa waan ka caawin karnaa waxaan u fududeyn karnaa qofka productiga Soomaaliyeed haaya inuu halkan keeno uu ku iibsado waxaan kala u fududeyn karnaa qofka Soomaaliyeed ha ahaato liin ha ahaato basal ha ahaato wax walba in store loo heli karo midda kale ganacsatada Soomaaliyeed oo jecel inay halka wax ka qabsadaan waxaan ugu yeeri lahaa inay imaadaan oo dalka wax ka qabsadaan si wanaagsan bartaan shuruuciyada ku dhaqmaan institution la lahaadaan ilaa wasaaradda hawshaas qabanaysa wasaaradda ganacsiga laakiin iyadoo saastaa shakhsiga rabo inuu ganacsado inuu waa u fududeynaa processkaas waa process aan ku guuleystay alxamdulillah processkan ina intaasi marka galaysi waa ina aad nafsadaada wax barataa horumarisaa fahantaa 2 sano ayay u qaadatay oo taam ah wili bilooyin si wanaagsan ina meel hor ka gaaro raadiyo documentary qoro dhigo fiiriyo maxay tahay maxay wadan gala muxuu yahay kan muxuu yahay saan fahma arkay opportunity inay tahay oo dadka u faa'iideyn karo aan maanta maxay yiraahdaa diyaar ah inuu faa'iideeyo midaas waa mida ku guuleystay ma sha Allah midda kale waxaan leeyahay waxaan baaq u dirayaa ganacsatada Soomaaliyeed meel walba joogan waxaan leeyahay dalkan waa dal ganacsigiisa aad iyo aad meel fiican u taagan yahay anoo fursaddan maanta ka faa'iideysanayo ganacsatada Soomaaliyeed laga yaabaa inay fildi badan leeyihiin oo maanta economics ah si wanaagsan qof walba guriga kan waa fildigiisa waa for example kan fildigiisa waa construction kan fildigiisa waa liinta gada kan fildigiisa waa dharka keenaa furniture keenaa si wanaagsan markii la dhaho company annaga hadduu qofka Soomaali company uu leeyahay companygiisa inuu alaabta wuxuu rabaa inuu soo geeyo si wanaagsan badana problemka Turkiga ku arkaan waxay tahay in alaabtaysan nadiifsayn si wanaagsan waxaana u koos kareen kara materialkii lagu nadiifinayo qofka inuusan haysanin productkiisa marka waxa dhila ganacsatada raba inay halkan imaadaan anoo ka faa'iideysan chance-kan ha awoodaan productiga wax lagu nadiifin lahaa si haduu suuqoodii maxaa la yiraahdaa kaga hormaraan dalalka halkan ganacsi ka sameeya si wanaagsan mid kale ugu baaqilaan waxay tahay waxaan ugu baaqilaa jaamacadaha dalka ka jira okay jaamacadaha dalka ka jira ma ogi in lagu dhigo actually dalka jaamacadiis waxaan ku baranay qof arday Soomaali ah oo jaamacad dhigana ma wareysan laakiin waa ku hol jira il maadada la yiraahdo business psychology lagu soo dar macquul maana inay ku jirto adiga waa laga yaabaa inay ku jirto laakiin hadeesan ku jirin jaamacada qaar qofka baranaya business administration mis any kind of business waa in loogu soo daraa business psychology business psychology sababtoo tahay door ganacsato halkan markay qalabkii keeneen oo elboorkii soo elboorka mis ha ahaado degadii ay soo dhigeen problemka ugu horeeyay ku face gareeyay waxay tahay waa business psychology haddii si loo fiiri business psychology maxaa ka wada adigoo maasan maxaa ka wada qofka ganacsiga qofka wax dalbanaya waa aniga liinta waa rabaa intaas oo tono liina ii keen walaalkay marka soo rarta u keento waa elboorkii u keento ninka wuxuu ku leeyahay liintaadu waa wasqaysan tahay liintaadi saan waaye adana qarash ku soo galay si wanaagsan ninkii wuu rabaa inuu liinta qaato waa kaga digaya ganacsatada Soomaaliyeed wuxuu rabaa liinta inuu qaato uu ka ganacsado wuu rabaa liinta waa ogna Soomaaliyeed ma lahan fertilizationkii nadiifintii wixii ma laha productigii la soo bacay la keen ma laha si wanaagsan
waxaa la leeyahay marka waxaa loo soo dirayaa qof qaraabadiis ah oo ninkaan ganacsatada ebel dalbaday isku xigaan waxaa la leeyahay liintii lagu markuu 3 maalin iyo meeshii yaalo ninkii isku baabo magaaladii luuqadii wixii ma yaqaan accesskii ma yaqaan ma faad marka wuxuu leeyahay markuu wareeraa nin loo soo diraa waxaa la leeyahay abti liintaadii maanta intay kuu taalaaye soo bax nimana kuu geynaa liinta gadanayaan waa la wareejinaya marba meela la gelinaya markuu ninka daalo wax kaa gadanayo soo waa dad lala balmin markaas waxaa la leeyahay ninkaan ganacsiga markuu wareero waxaa la leeyahay abti anaa kaa gadanaye qarashkan iga sii qiimahan jaban waa laga siinaya ilaan qofkaa safur lacagtuu raadinaya waa economics qarashkii wixii baxa in la soo celiyo la rabaa wixina lama haayo marka wixii ugu fudud oo qaadan karo cishan karo cishanaya marka qofka Soomaaliyeed waxay ku tahay business psychology ahaan qasaaro degdeg si psychology ahaan loogu bashay waa ilada nalgal arkay waa marka mid kale aan ganacsatada Soomaaliyeed aan dhiilaa waxay tahay ardayda jaamacadda dhigata inay field information u sameeyaan qofka ardayga ah field information marka u sameeyso wuxuu raadinayaa kambanigaaga haduu yahay inuu dhalo soo saaro more adduunka inuu research sameeyo raadiyo isku keeno dhaato qoro diyaariyo waxyaabaha uu yahay kambaniga uu raadiyo materialka ugu fiican in qofka ardayga ah ma ogtahay hadii loo fiiriyo qofka ardayga ah maanta dhalada soo saarayo haduu information badan uu ku keeno waa kaga guuleysan kartaa suuqgeynta kambaniyada kale kula midka ah information waa important tan xigtana ka hadlaa waxay tahay hadii la dhaho jaanis kale way haystaan ganacsatada Soomaaliyeed ilaan filliyada qaar oo maxay yiraahdaa oo labarka dalka shaqaalaha dalka adadkiisa mishaar ahaan aad u raqiis u tahay waxa laga yaabaa qof adduunka ku shaqeynaya $3,000 isla same fieldiga qofka Soomaaliyeed inuu $1,000 wax ka yar ku shaqeeyo marka opportunity-gaas maadaama ay haystaan ganacsatada Soomaaliyeed hakaga faa'iideystaan qaybta informationka hakaga faa'iideystaan qaybka wax raadinta sidee ganacsigooda u horumariyaan hadaa information enough haysato waa heli kartaa suuqa qaabka u gal lahayd weyga ku gal lahayd isa ugu guuleysan lahayd Abubakar waa mahadsan tahay gunti gabagabada ayaan ku jirnaa aniga waa Abduqaadir Xasan Ibrahim dhankeena waxa fadhiya Abubakar Xasan Cali wareysiga gaarka aan la yeeshtay Abubakar ugu dambeyntii gabagabadii waxaan ku weydiinayaa ma laga yaabaa inaad wadankan aad ka tagto wadankii Soomaaliya aad tagto aad sameyso intaad isku ururiso businesska dadka oo aqoonta ula dadkan aqoonta u lahayn oo lacagta haysto ama ay rabaan inay maal gashtaan dalkooda ama inay u imaadaan Turkiga inay wax ay ka xiriirkooda ay adkaan inaa mar aad tagtid ma laga yaabaa dadkaas aad la kulantid aad ka dhaadhicid barnaamijkan saan u fiican oo qiimeynta qadarinta u leh oo qof walba ku daawanaya hadda oo maartay oo meel walba oo joogo oo ujeedo waxyaabaha aad ka hadlaysid ay yihiin wax u dan ah ganacsatada dalka Soomaaliya dabcan 100% waa ku laabanaya sababtoo jirta dalkaygi waa dal maanta aniga bis boqolaal ila mid ah u baahan waa dal baahidiisa aad u sareysa maanta hadaan dalkayga ka sii cararaya waxaan soo bartay waalidkaygi wax soo baray xitaa kama farxin hadaan dalkayga ka cararaya waxaa laga yaabaa maanta howl yar qabto inay boqolaal qof ay fiid kareyso masha Allah iyo intaasoo kun oo dad inay ka faa'iideystaan waa intaan noolahana waa maalmo yar hadaan wax laga faa'iideysan بريتول markaan inta laga ma faa'iideysanayo iyadoo opportunity-gaasi fursadaasi ka faa'iideysanayo waxaa leeyahay ganacsatada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan mar walba garabkeena aynu nahay waxaana hadeertaan insha Allah diyaarin rabaa barnaamij entrepreneurship bis qofka inuu ganacsata noqdo ha ahaado dukaamada yar yar ha ahaado dukaamada waaweyn qofka maanta inuu noqdo maxaa la yiraahdaa ganacsato wax soo saar barnaamijkaas hadeerta diyaar rabnaa oo youth program ah oo dhalinyarada ah waana ku xijin doonaa program oo diyaarinay dadka ganacsatada raba inay maanta ganacsigooda horumar ka gaaraan barnaamijkaas ana waan diyaarin rabnaa insha Allah waana ku horjirnaa professor Turkish ah oo maxaa la yiraahdaa diyaar u ah in u faa'iideeyaan ayaa joogaan oo mar walba iga codsanaya Abubakar goorma tagnaa goorma qabanaya waxaan aad baaqalkan ugu dirayaa dawladda Soomaaliyeed
maantirtaan boqolaal anigay lamid ah inay naga faa'iidaystaan oo maxaa la yidhahdaa accesskii maantirtaan wadooyinka loo mari lahaa inay noo fududeeyaan inaan wadanka Soomaali imaano wax ka bedelno inay noo fududeeyaan maxaa la yiraahdaa in dhanka ganacsatada Soomaaliyeed wax ka bedelno inay noo fududeeyaan aqoonta dibadda ka keena inaan bulshadeeni Soomaaliyeed la qaybsano waa mahadsantahay Abuubakar gabagabadii waxaan ku jirnaa barnaamijkii daawadayaal meel walba aad joogtiin waxaa naga daawanayseen TV-ga Koonfur Galbeed xaruntiisa Ankara ee dalka Turkiga Abuubakar waa mahadsantahay warkeedii barnaamijkeeni inta ayuu nooga egyahay intaan dib kale u kulmi doono waxaan idin leenahay ani saaxiibkayga Abuubakar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو بكر وما تصنت برادر